السلام عليكم ساتين. والله والساحر ربي توبيك أنا عندي أنت ساحرنا كجرسينا فهمت. أوكي ما أنت توبيك إنه حاول نقول قفي عن قف دب أنه حسدي سنين قدر عم واش محكو قفي عن نقول. أوكي وحكو قفي عن نقول وحاول dadka inta badan u fiirso majority-ga sida u badan yihiin 99.99 sagaashan iyo sagaal waxay xiran yihiin mask يعني genuine ma ahan dhab ma aha daacad ma aha ama dad dhab ah ma aha fahmaysa so maskigana xiran yihiin maska xiran yihiin wuxuu yahay inay yihiin qof wanaagsan qof fiican qof magaranaysa يعني you know oo daacad ah qof ma fahamta waxaan dhahay so maskradan ay xiran yihiin ya markii aad ogaatid inaynu qofkan ahayn okay qasiira idin siina yar hadda ka hor aad saaxiib ahaan jirin waqti dheer ka hor kay saaxiib mini mar hore cabaar laga joogo fahant waa cut him off marka ninka adinio nin wanaagsan oo adigu marka hore camal aan u malayno uu soo galay iyo magaranaysaa siduu u dhaqmay ma fahant so marka ilaahay wuxuu qadaray maalin maalmaha ka mid ah inuu يعني إذا يعني you know meelaan ku shiraan lahayn marka wuxuu dhahay camal ninkan qadar mar rabo inuu imaado fahanta marka dambaa adii maalmo dada isoo diran wuxuu dhahay ninkii camal maxa ku samaysa muxuu camal يعني ninkii waxbuu kaa tabanaa fahmaysa so waa u tagay waa la hadlay maxaan kugu sameyn dhahe may waxa ugu samaysa malahan camal bla bla san camal يعني you know waxaa weye wara camal waxaa يعني waad u xumaysan fahmaysa waxaan dhahay sanad kadib aa ogaada marka ninkii waxa uu ani idhahay waad ugu samayso ase ugu samey ma fahanta marka inta ani aan dhihin inta ani aanan ogaanin wixii asaga ugu sameeyey ya ayuu ma garanaysaye dee yani asagu ani ugu soo gudiyey wixii ma fahamta waxaan dhahay waa sheekada yani tuug intaasan tuug ahan tuug ku dhaha camal ma fahmaysa aduu tuug waxa hadii meel tuug asoo dukaan dhacda u jabsada wariyaa oo tuug asuu intaad dhinoo kaala hormaraa sababtoo ah wuxuu ogyahay wuxuu sameynaya in lagu qabtay wixii sameynaya yani max uu xaday marka labada nibs hadaa tihiin waa asagana tuug dhahaa adigana tuug aa dhahada dadku inku soo baxaan labada is haysto tuug yeela aamina marka adna tuug ma fahamta waxaan dhahay waa sheekadaasoo kale waa ma fahmaysa marka dadka noocan oo kale ah waxaa weeye يعني ماسكرد waxay yihiin oo nice nah oo yani mask oo yani qof wanaagsan ah qof sheeq ah qof shariif ah qof magaranaysa oo yani wadaad aan fahmaysa laakiin dad ka xun ilaahay ma oomo fahanta waxaan dhahay saaxiib ma galaan lama saaxiibi kartid dad ma ahan aad aamini karta maaha dadaa la socon karta maaha ma fahmaysa يعني يعني tartan ay kula jiraan oo secret tartan ay kula jiraaday ma fahanta kugu dhul cadeen oo qos laakiin tartan kula jiro oo kula xintamayaan fahanta waxaan dhahay ya marka dadka inta badan saas u badiyeen majority saas u badiyeen fahmaysa marka aan leeyahay يعني dhab noqo waxaan ka wadaa adiga يعني you have to be genuine person waa ina ahaataa qof يعني daacad ah oo يعني iska oo يعني dhab ah ma fahmaysa ma aha inaa malba meesha degto un aa isbadbadishaa sidii jirjirore maal laha bahalka marba meeshuu taga isgegdiino meel cagaaru tagaa cagaaru iska dhigaa meel blue tagaa blue iska dhigaa ma fahmaysa يعني ma fahant waxaan dhahay يعني ma xuma haddii aad waddan cusub tagtid inaad xogo cultureka waddankaas ka jira aad يعني ixtiraamtood oo ma garanaysaa respect siisaan fahmaysa laakiin maaha in adiga dhaqankaada aad ka guurtaa oo dhaqankooda qaadataa ama diintooda qaadataa fahanta ya يعني there's marka midda kale markaad tahay qof nice ah ya dadka inta badan way kugu kor soconaan ama way kugu xamaalinaan ama way kugu shaqaysanaan ama waxay isku dayaan inay يعني kugu maxaa dhahdaa kugu dangaaraan oo sida dulli oo kale ama dhaadhaan oo kale ma fahanta markay dantay kaa leeyihin kaa gaaraan haddana ay magaranaysaa sidii tissue oo kale iska kaa tuuraan fahmaysa waxaan dhahay ya marka you have to have يعني healthy boundaries waa inaad leedahay xuduudo ama xad oo يعني aan la soo gudbi karin oo cidna ay soo gudbi karin fahanta
يعني healthy boundaries wax la dhaha jira waana qasab every time waa inaad enforcement ku sameysaa boundaries xuduudahaada maxadkaa sababtaa dad waxaa jiraan oo yani way ku tijaabanaan saaxib camal kaftan wax bay ku dhahaan next time wixii baad ka amas faraha u qaad meesha kuma haraayan wax kale ku dhahaan wax ku dhahaan baaritaan midnowd qofkaa marka wuuba ku yani si wuxuu kula dhaqmaya sida nacas oo kale madhaadhahan oo kale mafaan sababtoo ah adiga waxaa malaynaysa dee inuu qofkaas isgaranayo uu magaran wuxuu kugu hay dabeecaddu kugu hay dhaqan kugu uu bedelo doono mafaan maadaama adi marka aad ka xishootood ka aamustay ayaga saas uma qaadan oo ma arkaayan waa dulliyaal mafaan marka waxay isku day inay ku dullaystaan ama ku dullay ama ay magaranaysaa kuwa mafaan so hadda jeer yani waa inaad boundarieskaada aadan ama xuduudahaaga ama xadkaada cid inaadan weji kaga raadsan cid aad weji kaga raadsan cid aad magaranaysaa aad kaga raadsan wanaag iyo nabad mafaan qofkii nabad iyo wanaag doonayo wanaagaad doonayo يعني waxaa way xuduudaha waa inuu ilaaliyaa fahmaysa ya marka yani hadda every time fiirsano markii ragga meel isu imaadaan every time waxaa weeye raggaas meesha wada joogaan way is og yihiin haddii ani aan familkaada caayo ama familkaada xumeeyo ama aan wax xun ku dhaha in adigana aad wixii aad retaliation aad sameynayso aad waxaan ku dhaha intaan ku dhahay inta laba jibaarkeeda aad dhehayso fine so there's always a low level threat waxa la ayaguna ragii yani dagaal jirin oo waxba yani cunaha la isku duubnaan haddana waxaa la og yahay qof walba og yahay in ma garanaysaa yani threat cabsi oo ninkan kale iga imaan karta ani haddii aan xumeeyo ama aan wax xun ku dhafto ama familkiisa aan caayin familkiisa wax u geysto fahmaysa marka haddii jeer yani waa inaan aniga waa inaan ninkan ama ninka ama yar qofkan kale aan la joogo inta badan inaan xuduudiisa ama aan ilaaliyaa oo familkiisa aan ku xadgudbin ama magaranaysaa aan afligaadenin dhaqan yani qoyskiisa ama asaga ama waxyaala uu dhibsanayo uu ii sheego ma fahanta haddii aan saaxiibana fahmaysa waxaan dhahay ya marka waxaa jira dad inta badan aan korinba caruur maskaxiyan aan u korinba yani 40 jir ama 50 jir waa koodhin laakiin caqligooda ama maskaxdooda waxay u dhaqmaan sida caruurihii kale u dhaqmayaan ma fahmaysa wax malan self discipline malahan accountability naftooda uma sameyn karaan ma qaban karaan yani naftooda isma ceelin karaan isma xadidi karaan fahmaysa marka sida ayaga ay yani yihiin bay u maleynayaan ama ka aaminsan yihiin inay adiga tahay ama qof kasta uu saasi faham sankay kaasoo galaan waxay doonaan kuu sameyn waxay doonaan kuu dhaan faham haddii xataa u digtid ama aad dhahdo warniyo waxaan waa iga xisho ama saan ma yeelan marka waxaa samaysaa intay kugu haayeen laba jibaarkooda lagu sameeya waan say u gartaan waxaan dabeecaddan iyo dhaqankan ay kugu hayaan inaan wax wanaagsan ahayn bal ha arkaan daawadooda ay qaseenaa la siyaano fahanta anaa ha dad noocaasa jiraan man so mida kale ma ahan every time adi ay xadkaan soo gudbaan inaad xanaaqdo ama aad magaranaysa fur ku tuurto maha waayo waa inaad ogaataa mar waxaa jirta seefta galka lagala baxay iyo mar yani seefta galka lagu hayo ma fahmaysa every time qof walba uu ka xanaajiye maha inaad seefta madaxa ka goysano fahmaysa there's a time for everything so waxaa weeye hadduu og yahay mar walba uu waxaan kugu sameeya inaad xanaaqaysid ama uu ku cayo aad xanaaqaysid gasood hadhowti jaanisuu kugu haysta markaa jira maritaanba wixii aad dhibsanayso fur uu sameynaya fahmaysa marka qofna waa inaad siisa ma aha control emotionkaada inuu control maaha in farxadaada uu control maaha ma fahmaysa laakiin saasay tahay ma aha inaan isdhihin oo ma rabo inaan qofkaa iga xanaajiyo si wuxuu doono uu sameyna yani waa u dulqaadan maaha ma fahmaysa haka yeelin inuu ku duleysana haka yeelin hana siinin jaanis iyo awood uu magaranaysaa emotionkaada ku control sababta hadduu jaaniskaas helo bis waa ku dhamaatay fahmaysa dad noocaasaa jiraan iyo waqtigan la joogo wallahi is crazy man waxayba u malaysaaba inayba ku tukadaanba ama ilaahay ka baryaanba in qof daciif ah oo ama nice ah oo aan naftiisa u istaagi karin ama aan isdifaaci karin inayba ilaahay usoo dirabano saasay u malaysa inay ku duceysaa sababta ah markaad u fiirsid inta badan bullyga dadka bully garayaan ama dadka inta badan dadka kala dhimaan oo yani iskuulada waa la bully garaya mogta bullying waxay aadaan kuwa ayaga ka yar ama kuwa ayaga oo ay ka xoog badan oo ay og yihiin ma aadaan kuwa qeyrkooda
fahmaysa sababta waxay ogyihiin in qofkan kale uu ka xoog badi ama waxoogaa isleeyihiin waa kaa baqa oo fahmaysa yeah? marka yeah it's crazy just be careful out there insha allah hurdaan ka galaa insha allah. I'll see you next video yeah. It's okay, salaam alaikum, bye.